kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo mar kale ku celiyay hanjabaadiisa ku aadan xeebaha badda cas xilli Itoobiya ay shaaca ka qaaday in qorshe ay ku doonayso xeebaha badda cas uu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xawl laga helay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Madoobe oo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin Siciidani Axmed Madoobe iyo Shariif Sheekh Axmed kooxda TPLF oo hanjabaad culus u dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed xilli TPLF ay taageero military iyo mid dhaqaalaha ka heshay wadamada Masar iyo Eritrea iyo xogii ugu dambeeyay ayaa idin la wadaagi doona iyo wararkii ugu dambeeyay dil la yaab leh oo ka dhacay gudaha degmada Cawdaaq ee gobolka Galgaduud qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawan doontaan barnaamijkeena inta hawada ku jiro balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhig kanaalkan subscribe dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararkan halkan sida joogtada ugu soo gudbino aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar kale ku celiyay damaciisa waalida ee ku aadan qaadashada xeebaha badda cas xilli Abiy Ahmed uu markaasi hanjabaad toos u diray dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hor hadlayay markaasi munaasabad ka dhacday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya oo ay goobjoog ahayeen xubno ka tirsan dawladdiisa ayaa mar kale ku celiyay damaciisa ku aadan xeebaha badda cas waxa uu sheegay in Itoobiya aysan joogin waqtiga ay ka laway lahayd qaadashada xeebaha badda cas waxa uu sheegay in Itoobiya aysan badlaan sii hakarin isagoo sheegay in tirada bulshadoodu ay sii kordhayso isla markaana baaxadda dhulkoodu uu markaasi weyn yahay waxa uu sheegay in 120 milyan oo Itoobiyaan aysan fiirsan karin wax ka yar 3 milyan oo markaasi haysta xeebaha badda cas isagoo sheegay intaasi aysan hayn xuquuq iyo cadaalad u qalanta dadka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu mar kale ku celiyay hanjabaadiisa ku aadan xeebaha badda cas waxa uu sheegay in Itoobiya ay dhawaan ka bixi doonto badlaanta ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed sidoo kale waxa xusay in dawladda Mareykanku ay taageersan tahay qorshaha Itoobiya ay ku raadinayso xeebaha badda cas waxa uu sheegay in dunidu ay la yaabtay Itoobiya markii aan dhahno 120 milyan ayaa badlaana wax ka yar 100 kilomitir ayayna u jiraan xeebaha badda cas arintaas oo uu sheegay in kaliya ay ka jirto gudaha Itoobiya hadalka Abiy Ahmed ayaa ku su'aadaya iyadoo dhawaan dawladda Itoobiya ay sheegtay in dawladda Mareykanku ay taageersan tahay qorshaha Itoobiya ay ku raadinayso xeebaha badda cas xilli markaasi uu sheegay in Itoobiya ay joogto waqtigii ay u ruqaansan lahayd xeebaheeda badda cas oo uu sheegay hore loo qaatay Abiy Ahmed ayaa sidoo kale hore waxa uu sheegay markaasi in dekada casab ayagu ay dhaqaale iyo waqti galiyeen sidaas darteedna aysan markaani ogolaan doonin in markaasi ay hayso dawladda Eritrea Abiy Ahmed sidoo kale waxa uu weydiiyay meesha Itoobiya ay ku bixisay xeebaheeda badda cas waxa uu sheegay inaysan jirin dukumeenti ama warqad cadeynaysa mas'uuliyiin Itoobiyaan oo bixiyay xeebaha badda cas isagoo sheegay in hadda ay doonayaan in xuquuqda Itoobiyaanka ay u soo celiyaan dhinaca kale dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka heshay taageero ku aadan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu taageerayo damaca biyaha badda cas ay ku doonayso Itoobiya maxadka daraasaadka Itoobiya ayaa dhawaan soo saaray markaasi maqaal ku aadan xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markaasi dib u heshiisiintii Ankara iyo sidoo kale dagaalka ka dhashay heshiiska MOU-ga ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya kaas oo dawladda Soomaaliya si weyn ay uga dhigdhisay dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay markaas in dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qayb yahay ololaha Itoobiya ay ku doonayso xeebaha badda cas isagoo aaminsan qorshahaasi hadalka Itoobiya ayaa dhaliyay hadalhaan culus iyadoo Itoobiya ay ka mid tahay meelaha ay xeebaha ka raadinayso Soomaaliya oo ay aaminsan tahay markaasi in iyadu ay leedahay xeebaha Saylac iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah xeebaha Soomaaliya oo si weyn ugu hanqaltaagayso si kastaba haatee damaca waalida Itoobiya ku raadinayso xeebaha badda cas ayaa hadda u muuqda inuu mar kale laba qarxay iyadoo dawladda Eritrea ay ku eedeynayso Itoobiya inay abaabulayso dagaal ay ku soo qaado ayna doonayso inay ku qabsato xeebaha badda cas gaar ahaan dekada casab dhinaca kale khubarada ka faaloota arrimaan waxay sheegayaan in Itoobiya ay ku marmarsiinayso inay weerarayso dekada casab balse ay si dadban hoos ugu wado qorshe ay ku doonayso xeebaha Soomaaliya oo ay aaminsan tahay inay ka fudud yihiin marka loo eego dekada casab maadaama ay qasaare culus kala kulmi karto Itoobiya hadii ay weerarto ayna markaasi suurtagal tahay inay saba gaarin maadaama Eritrea ay tahay dal horay markaasi Itoobiya u tusay awoodiisa ahna dal isku mideysan oo leh awood ciidan marka loo eego dhinaca dagaalkana Itoobiya ay barqacad ku diri karto dhinaca dagaalka
waxay xoguhu sheegayaan in Itoobiya ay dhici karto inay u soo jeediso damaceeda dhinaca xeebaha Soomaaliya gaar ahaan xeebaha badda cas ee aagga Saylac halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo qulqulayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Itoobiya oo la sheegay in la soo dhoobay xuduudda markaasi u dhaxayso Somaliland iyo sidoo kale Itoobiya dhinaca kale kooxda TPLF ee ka dagaalantay waqooyiga dalka Itoobiya ayaa markale hanjabaad adag u diray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyagoona sheegay in xukuumadda Abiy Ahmed ay ku howlan tahay burburinta xisbiga Tigreega iyo hoos u dhigidda awoodda militari ee kooxaha TPLF ee ka dagaalama gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya afayeen u hadlay kooxda TPLF waxa uu sheegay in xukuumadda Abiy Ahmed ay markaasi wado qorshayaal halis ah oo ay doonayso inay meesha uga saarto guud ahaanba TPLF ayna ku kala qaybinayso isagoona sheegay intaasi ay ogolaadonin kooxda TPLF ayaa diyaargarow dagaal bilowday waxaana dhawaana la sheegay in ay soo bandhigtay hub culus oo isugu jira gaadiidka dagaalka oo ay ka mid yihiin taangiyada hubkaas oo aan ahayn hub ay hore u haysatay sida ay sheegayaan ila wareedyo ku sugan markaasi gudaha Itoobiya hubkan ayaa la aaminsan yahay in kooxda TPLF ay ka heshay markaasi dhinaca Eritrea iyo Masar hal kuwa kalena ay yihiin kuwa hore u qarsatay isla markaana ay ku qariday ayaa la leeyahay buuraleyda gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya dagaalada ka socda gudaha Itoobiya ayaa markan u muuqda inay waji kala yeesheen iyadoona xaaladda ay soo farageliyeen dalalka Masar iyo Eritrea oo doonaya in xukuumadda Abiy Ahmed xilka la dhaafiyo maadaama Masar ay u aragto xukuumadda Abiy Ahmed inay halis ku tahay markaasi biyo-xireenka Abay ay ka dhisatay oo Abiy Ahmed uu markaasi xiisad adag kala dhaxayso dhinaca Qaahira halka Eritrea ay cabsi ka qabto kana foojigan tahay weerar kaga yimaado dhinaca Itoobiya kaasi oo ay ku raadinayso xeebaha badda cas dowladda Eritrea ayaa garab istaagtay kooxda TPLF oo hore ay uga qayb ahayd dagaalka Abiy Ahmed uu ku qaaday balse Eritrea hadda waxay baritaaraysaa TPLF si looga hortago damaca guracaan ee Itoobiya ku doonayso xeebaha badda cas gaar ahaan dekedda Casab halkaas oo ay hanjabaad adag u direen madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya dhegeystayaal qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda balse daawad haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like kanaalkan subscribe kala mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka aan halkan sida joogtada ugu soo gudbino haddii aad hore noola joogteena waad ku mahadsantahay daawada lanyaaqaadka wararka ee barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Sile Axmed Ebi ayaa xoguhu sheegayaan in loo doortay gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin xubnaha markaasi golaha musabata bixinta qaranka ee hogaamiye Shariif Sheekh Axmed Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyadoona la sheegay in Axmed Ebi uu noqon doono hogaanka golaha mustaqbalka Soomaaliya oo shirkoodu ka dhacayo magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland xogaan helnay oo ka imaanaya dhinaca magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Sile Axmed Ebi lagu soo doortay shirar ka dhacay magaalada Dubai dalka isku taga Imaaraadka Carabta halkaas oo ay kulamo kala duwan dhawaan ku yeesheen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Sile Axmed Ebi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyadoona ay goobjoog ka ahayd dowladda Imaaraadka Carabta dhinacyada ayaa la sheegay inay isla garteen marka ay firiyeen kartida Axmed Ebi iyo dagaalka suu uga mid yahay ka dhanka madaxweyne Xasan Maxamuud in loo dooran karo inuu hogaamiyo gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliya oo la filayo inuu shirkoodu ka dhaco magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland waxay sheegayaan in amniga magaaladaasi la adkeeyay isla markaana ay halkaas ka socoto qabanqaabada soo dhaweynta hogaamiyayaasha hogaamiyaasha ka qaybgalaya shirka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo dhawaan la filayo inuu halkaas ka dhaco xubnihii ugu badnaa ayaa ku sii qulqulaya magaalada Kismaayo iyadoona markaasi la diyaariyay soo dhaweynta iyo sidoo kale qabashada shirka golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ka qaybgali doonaan siyaasiyiinta ugu badnaa oo ka gadoosan dhinaca madaxweyne Xasan Maxamuud kana soo horjeeda qorshaha doorashada qof iyo codka ee fila Soomaaliya wado madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la filayaa inuu halkaas gaaro iyadoona la filayo in fuud uu harkacay Shariif Sheekh Axmed ay ka kicitimaan dhinaca magaalada Muqdisho iyagoona ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland dhinaca kale xoguhu waxay sheegayaan in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Sile Axmed Ebi oo ka soo laabtay markaasi deegaan u dhow magaalada Gaarisa halkaas oo ka qayb galay meher uu lahaa wiil uu dhalay taliyaha ciidamada markaas sirdoonka Kenya Nuuridiin Xaaji uu ku soo laabtay magaalada Kismaayo isla markaana uu halkaas ka bilaabay qabaqaabada shirweynaha uu doonayo in Axmed Ebi shir gudoomiyo oo ka dhacay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland
shirkan oo markaasi filla Soomaaliya dhowr jeer hore isku dayday inay ka hortagto ayaa guud ahaan fashilmay waxaana sidoo kale la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira markaasi doorashooyinka Soomaaliya oo markaasi si weyn hadda la isugu haysto Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad siyaasadeed hogaantilaana waxaana jira markaasi isku dhacyo u dhaxeeya dhinacyada mucaaradka iyo filla Soomaaliya iyadoona markaasi filla Soomaaliya ay ku adkaysanayso qorshaheeda doorashada qof iyo codka oo ay ka qabanayso dalka halka mucaaradkuna ay ku eedeynayaan in madaxweyne xasan maxamuud uu markaasi maagan yahay qorshe halis ah kaas oo uu doonayo inuu muddo kororsi ku sameeyo kuna marmarsiyo doorashadaasi ugu dambeyntiina xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada Cawdaq ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo lagu dilay nin ahaa aqoon-yahan iyo siyaasi oo lagu magacaabo Cabdi Ciise Qooley dilkan ayaa la sheegay in xalinta fiidka uu ka dhacay gudaha degmada Cawdaq ee gobolka Galgaduud halkaas oo la sheegay in ninkan lagu toogtay markaasi xilli aroornimadii ay ahayd ilaa hadda ma jiro faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan dilka ninkan balse xogaha soo baxay waxay sheegayaan in markaasi aan la xaqiijin cidda ka dambeysay dilka ninkan oo markaasi la sheegay inuu ahaa nin siyaasi iyo sidoo kale aqoon-yahanka degmada Cawdaq ka mid ahaa ma jiro ilaa hadda wax war oo ka soo baxay lama ammaanka ee degmadaasi iyo sidoo kale dhinaca maamulka Galmudug hase yeeshee dilalka ka dhacay magaalada Cawdaq ee gobolka Galgaduud ayaa inta badan la xiriira arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo u dhaxeeya beelaha degmadaasi wada dega guud ahaan intaas wax ku warka aad kala socoteen kanaalkeena wararka Xoghaye TV fadlan haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhig kanaalkan subscribe dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogaha iyo wararka aan halkan ku soo gudbino nabadgelyo